بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan YouTube channelkeena Keenan Code alaaba uga barataan inaan ka soo gudbino casharada qosay computer science iyo technology-da. Sidoo kale hadduu muuqaalkani ka soo gaaray Facebook page-keena ENG ama Engineer Ibrahim Usman, follow doo like saar sina share gare muuqaalka. Video-geenan ama casharkeenan maanta waxa quseeyaa how to unlock a BIOS key on an Acer computer ama computerada kale oo dhan oo kaaga bixi kara laakiin waa sida BIOS key-gaaga aad uga furi kartid ama unlock inaad ugu samayn kartid computer-kaaga. waxaan isticmaalaynaa hal shay oo ah website kaliya aynu isticmaalanaa iyo xeelad kale oo aynu computerkeena BIOS ku xidhan yahay aynu ula tegi doono. Computerka aan hayo iminka waa computer Acer ah, waxaad ku xidhan sidaad aragtaan waa BIOS key. waxaan weydiinayaa qoraalka xagga sare ku qoran title-ka aad aragtaan enter current password oo ah password-ka iminka kugu xidhan BIOS-ka geli. maadaama haddaanan garanayn aan enter idhaahdo waxay weydiinayaa isla password-ku ma gudbi karo. hadaad u baahan tahay inaad computerkaagana aad operating system Windows Linux wuxuu doonaa noqday aad ku duubatid aadan BIOS-kayga garanayn cilad baa kaaga hor imanaysa. marka xeeladan isticmaalana maxay tahay kaliya waxaan doonayaa marka in password-ka aan dhowr jeer khaldo. hadda ilaa 2 jeer khaldan baan geliyay mar kale ayaa khaldayaa. qaybtan markuu soo saaro qoraalkan aad password-kii dhowr goor khalado waxaa ku soo baxaya maxay enter unlock password iyo system shutdown. marka system shutdown haddaan taabto uu damaya computerka, laakiin ta sare oo ah waxaad gelisaa unlock password-ka ayaan ku dhufanaya. kadib waxaad aragtaan in qaybtan uu ka soo saaray tiro number ah. tiradaas ayaan waxaan gelin doonaa website-kaas wuxuu siin doonaa password-ka aan kaga jebinayo BIOS-kayga. marka computerka ayaan iminka u wareegaya. iminka waxaynu soo galnay ama u soo gudbinay step-keeni labaad oo ah in aynu password-keenu hadda isla soo aragnay tiradii lambarada ahayd ee computerkeena ka muuqatay aynu website-keenu gelin lahayn ayaan booqanaynaa. website-ka waxaa la yidhaahdaa bios-bw.org. inter ayaad leedahay. kadib markaad browserkaaga intaad ku qorto waxaa kusoo baxaysa shaashad sidan ah. daaqadda aynu u baahannahay waa tan horteena taalla ay ku qoran tahay enter your code-ka aynu gelinaynaa marka waa mid xagga yaalla, waa kan inoogu qoran shaashadda computerka aynu rabno inaan BIOS-kayga ka saarno. mid ayaad u gelin doontaa. kayga iminka waxaa ku qoran 10 85 54 13 85. tirada markaan dhammaystiro waxaan ku dhufanayaa badhankan hoose ay ku qoran tahay get password oo ah in la siiyo ama aan helo password-ka BIOS-kayga ka xidhan computerka aynu hagaajinayno ama aynu cila saaridda ku samaynayno. click ayaan siinaya. waxaad aragtaan inuu ii soo saaray 2 computer. marka labada computerka ku yahay baad eeganaysaa. hore waxaan u sheegnay computerkeenu inuu ahaa Acer. marka halkan waxaa ku qoran Acer inside oo 10 digits ah. lambarkii aynu gelaynay marka hore uu ahaa 10 digit iyo ka kale oo HB ah. marka computerkaaga haddii mar walba aad code-ka geliso oo 2 computer ku saaro magaca computerkaaga ayaad eegaysaa. maadaama kaygu Acer ka yahay waxaan gelinay doonaa computerkayga kale code-ka bartan iyo qoran ayaa waxaan gelin doonaa computerka. iminka waxaan geliyay computerkayga anoo isticmaalaya browserka website-keena code-kii computerka aynu cilad saarayno uu ku qornaa wuxuuna ii soo saaray number sidaynu halkan aynu ku sharaxnay. code-kan ayuu ii soo saaray Acer-ka ayaa la rabaa inaan geliyo computerka BIOS-ka uu ka baxayo. marka halkan baan dhigan doonaa, waxaan ka eegan doonaa shaashadda F177 36 35 59 6E42B4. iminka waxaan dhammaystiray waa koodhkii website-ku i siiyay. koodhka markaan dhammaystiro oo aan geliyo hal mar ayaa waxaan ku dhufan doonaa keyboard-kayga badhanka click ayaan siinaya. enterta ayaan click siin doonaa insha allah. kadib waxaa dhaca arkan koodhkii waan dhammaystiray enter baan siinaya. عجبنا من العجائب. waxaad u jeedaan iminka in BIOS-kaygiini uu furmay. inta waliba waxaan sii raacinayaa marka allaalay markaad website-ka sida aad steps-ka soo raacnaa samaysid sidana aad gelisid inta aad dhahdo qaybtan ku soo furo BIOS-ka dib kuma weydiin doono BIOS-kaygaaga. sababta ku ogaanayna inuu sii weydiinayn waan hubinaynaa. marka exit ayaan leeyahay waa ka bixi doonaa. marka ka baxo waxaan doonayaa marka in computerku uu toos u soo kaco uusan wax BIOS-kayga i weydiin. marka halkaa waxaa ku dhan muuqaalkeena inuu kaga hadlaynay how to unlock a BIOS key
aynu isticmaalaynay hal website aynu isticmaalna oo la yidhahdo bios-bw.org. stebiska unbaad soo raacaysa haddaad fahmi weydo aan horay ama aad ka keeni weydo muuqaalka unbaad dib soo celinaysaa. muuqaalka xiga intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.